wejiga haddii ay nabra kaa dhibeen oo ay nabra nafta kuu keeneen, alaabtaan marso. Alaabtaan ayaa nabraha kaa dhameynayso oo wejiga kuu qalajinayso oo wejiga nadiif kaaga dhigayso. Sidoo kale wejigaaga haddii uu saliid leeyahay oo saliid aa iskaga maaran la'dahay, alaabtaan marso. Alaabtaan wejiga ayay nadiif ka dhigtaa, saliidda way ka dhameysaa, nabraha way ka dhameysaa, wejiga waxay ka dhigaysaa weji qalalan oo qurux badan oo dharay ah ayay ka dhigaysaa. Sidoo kale haddii ay kareemada qaar wejiga kaa dileen oo wejiga aada marsan karin oo rabtid wejigaaga inaad qurxisid uuna wejigaaga saliid leeyahay, alaabtaan marso. Alaabtaan ayaa wejiga kuu qurxinaysa oo kuu cadeynaysa oo dhalo kaaga dhigayso. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabta ku xiran Najax Kitchen and Beauty, soo dhawaada walaalahayga meel walba aad joogtiin, dhammaantiin soo dhawaada. waa walaashiin oo inii sida cashar kale cusub ayaa maanta walaalahayga inii wada. waxaana inii sida alaabta yarta oo weelka noogu qasan. waa alaabtii loo isticmaalayay wejiga saliidda iyo finanka leh ayaan alaabtaan ugu talagalay insha Allah in looga faa'iideysto. haddii ay wejigaaga uu saliid iyo finan ay ku dhibeen oo maara aad iskaga weysay, alaabtaan isticmaal. alaabtaan ayaa kaa dhameynaysa oo wejiga kuu qalajinaysa oo wejiga nadiif kaaga dhigayso oo wejigana kuu cadeynaysa oo dhalo kaaga dhigayso insha Allah. maanta casharkeena waa kaasaa walaalahayga, soo dhawaada. hadda meel walba aad joogtiin kana bogta qaybta dambe videoga waxyaabaha aan ka sameeyay alaabtaan yarta oo aan ugu talagalay wejiga in looga dhameeyo saliidda iyo nabraha oo lagu cadeeyo wejiga saliidda iyo nabraha leh walaalahayga. bismillaah, alaabteeni wejiga ayaan diyaarsanaynaa walaalahayga oo wejiga saliidda ka dhameynaysay iyo nabraha. marka hore waxaan soo qaatay weel yar oo alaabteena aan ku qasano ayaan soo qaatay walaalahayga. marka hore waxaa u baahan tahay baradhada shiidan oo qalalan ayaan ku shubtay oo qaando haafkeeda. baradhadana waatana waa noocan walaalahayga, waa baradhada diyaarsan oo shiidan. waxaana laga helaa meelaha galeyda iyo qamadiga lagu gado ayaad ka helaysaa. waana baradhadeeni caadiga ahayd oo lasoo filtaray oo lasoo hagaajiyay waaye. baradhada shiidan ayaa u baahanahay, intaas oo kali ayaad dhehaysaa waana ka helaysaa. sidoo kale walaalahayga waxaan ku daray qaando haafkeed oo cusbur ah ayaan ku daray. waa cusburkeeni caadiga ahaa oo jirka lagu dhaqanayo waaye, asna waa kaasaa. intaan ayaan isku daray walaalahayga. sidoo kale waxaan ku darsanaynaa qasilkii caadiga ahaa oo jirka lagu dhaqanayo waaye, asna waa qasilkeeni. waana noocaas walaalahayga, nooca dhaaga waaye. noocii ku yaala isticmaal insha Allah. inkastoo loo nooca dhaaga ayaa fiican, asaga qasilka laba nooca. sidoo kale waxaa u baahan tahay rose water ayaa u baahan tahay. waa biyaha ubaxa, ayagana meelaha shoppingka ayaan kasoo gaday walaalahayga. biyaha ubaxa laba fur ayaan ka isticmaalaynaa oo alaabteena aan ku darsanaynaa. marka weelka yarka waxaa noogu jiro baradhadii iyo cusburkii iyo qasilkii iyo biyaha ubaxa oo laba fur ah. intaas ayaan haatan isku qasanaynaa oo si fiican isku dhexgelinaynaa insha Allah. inay fahanteen ayaan rajeynayaa walaalahayga. weelkan yarka haatan waxaa ku qasanaynaa biyihii ubaxa oo laba fur ah iyo qasil iyo cusbur iyo baradhadii shiidneed oo qalalneed ayaa halkaa noogu jirto. intaas ayaa haatan isku qasanaynaa insha Allah. baradhadana meel walba ayaa ka helaysaa, meelaha galeyda iyo qamadiga ka raadiya insha Allah waa lagu gadaa. waa baradhadeeni caadiga ahayd oo lasoo hagaajiyay. waa kana walaalahayga markii aan soo qasay. sidoo kale waxaa u baahan tahay dacarta ayaa u baahan tahay. alaabtan waa dacartii aloe vera waaye. ayadoo hadaa haysatid oo midda geedka caadiga waa isticmaali kartaa, midaana waa isticmaali kartaa. in yar ayaan ku darsanaynaa, kabacdina intaas waa isku qasaynaa insha Allah. dacarta wejiga way u fiican tahay maasha Allah, faa'iidadeeda halkan laguma soo koobi karo. wejiga haaraha iyo gudguduudka iyo hurka intaas ayay dacarta u fiican tahay maasha Allah. sidoo kale baradhadan shiidan oo qalalanna waxay u fiican tahay wejiga, dharay ay ka dhigtaa. waxaan ku dhahay saliiday ka dhameynaysaa, wejiga qallayl nadiif ayay ka dhigaysaa maasha Allah. sidoo kale cusburkana wejiga wuu cadeeyaa walaalahayga, asaga wax dufana ma lahan. wejiga wuu kuu qurxinayaa, weji liisha ayuu kaaga dhigayaa. haddii alaabtan lagama sheekeyn karo maasha Allah. si iskula soo baxdo waa isla arkaynaa walaalahayga. maasha Allah. alaabteeni markaan soo qastay walaalahayga wax kale kuma daraayi, sidaas ayay noogu soo baxday. hadda alaabteeni yareed oo aan diyaarsanayna maasha Allah tabaarakallah, lagama sheekeyn kara. hadda brushkaaga gasho waaye, wejigaaga marso, si tartiiba u marso. intaa marka hore wejiga soo dhaqdid oo soo nadiifisid ayaad alaabtaan marsanaysaa. maalinkii oo dhan waa iskaga joogjoogaysaa, habeenkii waa ku seexanaysaa maasha Allah. kareem waa uga maarmaysaa, kareem dambe hadda lagama maqlaayo insha Allah. alaabtaana waa alaabtii hadda wejiga finanka ka nadiifinaysay.
haddii aa marsatid muddo 1 week oo kaliya haddii aa wadid maasha Allah result fiican ayaad ka helaysaa 1 week xataa ma 3 maalin oo isku xigta haddii aa marsatid adi iyo finan waa isdeyseen insha Allah ilaahay idinkiis sidoo kale haddii aa wajiga uga cabanaysid saliid inay wajiga ka dhibtay alaabta marso saliiday ka dhameynaysaa baradhadan ku dhah wajiga way qalajisaa way cadeysaa markii aa marsatid ayaaba iska dareemaysaa wajigaaga inuu sii qalalayo waxaan markaa sii marsanaysa aaba dareemaysa inay qaleyl ku jirto maasha Allah markii aad iska dhaqdid wajigaaga adiga ayaa ka yaabi doontid insha Allah sidoo kale cusburkana wajiga uu cadeeyaa walaalahayga oo wuxuu ka dhigaa waji nadiif oo qurux badan hadda waxaan ku dhaqa qasilkana sidoo kale waa alaab yar oo isku dheelatiran wajigana way ku cadeynaysaa wayna ku qalajinaysaa saliid way kaaga dhameynaysaa nabri way kaaga dhameynaysaa kareem dambe hadda waad ka maarmaysaa sidoo kale kareemyada haday wajiga ka diray oo kareenka marsatid buu nabro ka soo bixiyo alaabtan marso alaabtan ayada ayaa wajiga ku cadeynayso oo ku nadiifinayso oo ku qalajinayso oo kaale iska arag qurux iyo liisho kaaga dhigayso waana alaab aad iyo aad u fiican waana alaab natural ah maasha Allah tabarakallah oo dhan walba ka dhameystiran finan hadii aad qabtid alaabtan marso wajiga liisho ayay kaaga dhigaysaa 3 maalin oo kaliya marso habeen iyo maalinkii marso maalinka inta guriga joogtid marso habeenkii markaas seexanaysidna marso iska dhaq marka hore intaad wajiga alaabtan marsanin wajiga soo dhaq soo nadiifi ka bacdi marso ka bacdi ku joog muddo 30 daqiiqo ka bacdina iska dhaq adiga ayaa resultigaas iska arki doontid insha Allah wixii jawaabana hadii igu soo warceliyo walaalahayga alaabtan waa alaab aad iyo aad ugu fiican wajiga nabraha iyo saliida ayay ka dhameysaa wajiga way qalajisaa wajiga nadiif ayay ka dhigtaa wajiga liisho ayay ka dhigtaa maasha Allah waana alaab natural ka faa'iideysta walaalahayga soo dhawaada meel walba aad joogtiin insha Allah waxaan rajeynayaa inuu videogan in la shaqeyn doono dhamaantiin insha Allah videogan si share gareeyo oo asxaabtiina la wadaaga